Soomaalidu waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dhaadheer bariga Afrika. In ka badan 3,330 kiiloomitir ayaa lagu qiyaasaa xeebaha Soomaaliya dhererkooda. Biyaha Soomaaliya waxa ay leeyihiin awood wax soo saar. Kamana faa'iideysano balse waxa daldasha dad ajaanibe ama dawlado ajaanibe. Shaxdan idin muuqata waa ajaanibta ka kalluumaysata biyaha Soomaaliya. Burma ama Myanmar sida loo yaqaan oo aynu ognahay itaaldaradooda 5% ay daldashaan oo gurtaan kheyraadka Soomaaliya, halka 50% isku geyn wadamada Iran iyo Thailand ay ka faa'iideystaan kheyraadka badda Soomaaliya. Sida shaxdan markale idinka muuqata, Soomaalidu kaliya 3% ay ka faa'iidaa kheyraadka badda Soomaaliya. Meeday xukuumadii u dhaaratay hantida shacabkan iyo dalkan. Kalluumaysiga sharci darrada bilaayin dollar ay sanadkii shirkado ajaanibi ka faa'iidaan kalluumaysiga Soomaaliya, halka inaguna aynu ka radanahay. Kalluumaysiga sharci darrada waxa uu keenay in ay dabargo ku dhawaadaan qaar ka mid ah kalluumada laga helo badda Soomaaliya. Inta badanka nibraanka iyo libaaxaduhu waa qaar ka mid ah kalluumada dhawaan la filayo in ay Soomaaliya ka dabargo'aan haddii aan laga gaarin kalluumaysatadaasi sida sharci darrada ah oo ugaarsanaya isla markaasina maalintii milaayiinta kalluunka ka daldalanaya xeebaha Soomaaliya. Ma jiro ciidan xeebeed awood u leh in ay difaacaan xeebaha Soomaaliya isla markaasina ay ilaaliyaan sharciga kalluumaysatada ee ku qoran dastuurka Soomaaliya. Dawladdu kuma dhaqanto. Ka shacab ahaan waa inaynu dawladda kula xisaabtanno dhibaatooyinkaas ay wax ka qaban leedahay. Xagee ayaynu ka dhacnay? Ma waxaynu daawanaa kheyraadkeena oo la daldalanayo? Idinka ayaan idin daayay su'aasha jawaabteeda.